wafdigii hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadde oo bariyahanba ku sugnaa gobolada bariga Soomaaliland ayaa saaka waxa ay socdaal ku soo mareen jiida hore ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wafdiga uu horkacay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Cali Maxamed Waran Cadde oo ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda hawlaha guud, wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada, wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada qaranka iyo ciidamada booliska Soomaaliland. wasiirku waxa uu warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiida hore ciidanka qaranka. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan guutada 14aad ee jiida hore qaranka uu u jeediyay kaalinta ay ugu jiraan qarannimada Soomaaliland iyo sida ay lagu maarmaanka u tahay in mar walba wadankooda ay difaacaan. wafdigu uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ciidanka ku sugan jiida hore waxay gaarsiiyeen deeq isugu jirta raashin, timir. wafdigu uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadde ayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiida hore dalka Soomaaliland raashin noocyo kala duwan ah kuwaas oo ay kamid ahaayeen timir, gogol iyo waliba xoolo ciidankaasi la gaarsiiyay. wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa halkaasi ka jeediyay hadal dhiirigelina oo ku dhiirigelinaya ciidamada qaranka Soomaaliland difaaca wadankooda ay ugu jiraan. ilaahay waxaan ka baryayaa inaan wax dhibaato idin la kulmin. midna waxaan idin leeyahay haddii madaxweynuhu ku ballan qaaday haddaanu wasaaradiinahay Jamhuuriyadda Soomaaliland naga go'an wax alla ma xaqurayaanu ka fuuleelina wax alla waxay doontaa noqoto ee aanu mar walba niyada ku haynayna ee aanu mar walba waxa na soo gala aanu la barbar taagnaanayna inay yihiin kuwiina naftii horeyaasha ah ayaan idinku ballan qaadaynaa. wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu fariin u diray ciidamada qaranka isagoo u ballan qaaday in saraakiisha ciidamada iyo guud ahaanba ciidamada qaranka Soomaaliland caruurtooda ay waxbarashada bilaash ku baran doonaan ilaa heer jaamacadeed. annagu waxaanu idinka ballan qaadaynaa ardaygiina inaan ka dhashaanay ardaya waxbarashada inaanu bilaash uga dhigno. hadduu dugsi sare ka baxo anagu waxaan ballan qaadayaa nin kastoo hadda shamaal dhigto nin baa igu yimi sarkaal ah oo igu yiri inankaygi baa dugsi sare ka baxay igu dir jaamacad ii keen baan ku yiri ballan waxaan ku qaadayaa arday kastoo uu dhalay sarkaal ama askari ama dable ciidanka qaranku inaan waxbarashada bilaash uga dhigno ayaan ballan ku qaadayaa meel kastoo uu joogo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadde ayaa waxa uu ka waramay faa'iidada ay askarinimadu leedahay iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in qof waliba wadankiisa uu difaacdo. marka hore inaan soo gaarsiino salaan aanu ka sidno madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo imika dalka safar uga maqan inaanu salaantiisa iyo mahadnaqiisa idin soo gaarsiino iyadoo ka turjumaysa hawlaha qiimaha leh iyo waajibaadka culus ee idin saaran sida uga soo baxdeen. waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu saaka idin soo salaanno oo aanu aragno quruxda halkan ka muuqata iyo qiimaha ciidanka qaranka ee aaga hore uu leeyahay. waxaanu jecelahay inaanu idin soo gudbino sida aanu raalli uga nahay hawlaha ummaddiina iyo qarankiina iyo dawladdiina u haysaan. waxaad tihiin xaydaabkii dalka Soomaaliland. waxaa ka soo baxdeen hawlo fara badan iyo dhib fara badan oo ay idinku qaadatay inaad dalka Soomaaliland halkii ugu dambaysay imika ay ka harsantahay waxoogaa yaroo kilomitiraada oo insha Allahu aan jecelahay inaynu nabad iyo wanaag aynu ku gaadhno xuduudda aynu leenahay Soomaaliya oo ah dal aynu walaalanahay badan aan maray. runtii waxa uu soo hoyseen qarankan sharaf fara badan iyo qiimo badan. waxaan idinku bogaadinayaa
in qiimaha iyo qaayaha aad leedihiin aad ku socotaan ku seexataan ku soo toostaan ayaan jeclahay aad iyo aadna waa idinka mahad celinaynaa waxaanu idinku muxuu ahay bogaadinaynaa geesinimo dulqaad iyo mas-uuliyadda ballaaran idin saaran inaad sideeda ugu faantaan